السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا براد أنا نيرجينيا حلي صوت دراي naagta gabadha yar ku dishay kaalkacyo 13 caruur 14 caruur ma leedahay dheemano eeg gorgeous beautiful kids qaarkood la leeyihiin gabadha yar miskiinada agoontii rajada ahay waxa la yidhi the sinner kama xishoodo ilaahay qofka xume ilaahay kama xishoodo sa ilaahay qalbigiisa ma fadhiya Soomaali kali kuma aha inay criminals yihiin oo dambiye geystaan cid waliba way leedahay dambiilayaal laakiin Soomaali mid baa cadow ah oo kaga duwan tahay dadka kale Soomaali waxay isku afgaratay miskiin iyo caruur inay ciilaan inaan cidina u hiilin naagtani horay gabadh oroma u gubtay baa la lahaayadii ninkeedu waa dad horara sida la sheegay waa la wada ogaa waxa loogu keenay gabadhan yar ee ehelkeedii ugu keenay inay ku shaqaysato because intaas oo caruur ay haysataa waxay kaga dareen say horar u yihiin maalin walba Soomaalidu inta waa isduubayaan waxaad moodaa go'aanay gaadheen inay tahay inay also inta hadhayna ay xayada iyo sharafta ay ka xayuubiyaan it's part of being a narcissist waa narcissisnimaday ka mid tahay xumaantay ka mid tahay cadownimaday ka mid tahay kuwan haddeer oo ooyaya ee la ehel baanu ahayn inanta yari ma meelay ka seexatay iyo waxay cunayaan inay la cunto ay ka weyday maxay ugu geeyeen cadawada imagine intaasoo nabari ku dhacaysay nabarra bugsaday baa ku yaalay sida la sheegay kufsi baa la sheegay runiya been waxay tahay ilaahay baa nagu I wouldn't be surprised inanta yar intaasoo dhibaatahay ku dhacaysay nabrahaas ku bugsanayeen ee ciiday u cabato weyday ciiday u cararto weyday imagine that is Soomaalida waxyaabaha u gaarka ah because meel looga cararaa ma jirto cadow weeye way isku afkarteen gabadha ninkeedu soo ciilo in loo celiyo ilaa inta uu kow kaga siinayo ilmaha yare agoontii rajada in loo celiyo cadowga gacanta loo geliyo in lagu shaqaysto qofka miskiinka ah imagine caruurteedii oo iyada la leeg oo aanay waxba u diranayn this is something very normal naagaha Soomaaliyeed waa bahalo in badan oo kamid ah bahalnimada iyo iswarweererinin bahalnimadu caadi bay u tahay heesaa laga sameeyay horaa looga hadlay naagaha Soomaaliyeed naagahan calamada la wada cararaya baqda haya isu bunaahayeynaya habeenay maalin warka iska sheegaya isbaacsanaya this is who they are waxba ay iska oohinin in badani waa sidaa weeye this is part of DNA da naagaha Soomaaliyeed waxa ku jirta inay miskiinka iyo ehelka iyo dadka ehelka soo mooda iyo caruurta agoonta iyo rajada iyo caruurta ninkeedu dhalay iyo caruurta ma garanaysaa martida ay xumayso ay cunto ay ciisho ay ku adeegato ay ku shaqaysto because waa wax iyada hore loo soo gumaystay gumad weeye la gumaysanayay weligeed xataa haddaan la gumaysan DNA-deeday ku jirtaa in la gumaysto iyo waa ummad gumaysigu caadi u yahay qoyan is the worst waa naagta adduunka ugu xun hadday qoyan wacnaan lahayd dalkuba sidaa ma noqdeen waayo wax isdhaamaa meesha iman lahaa bad waxa meesha maamulayana qoyan baa dhashay wax ma dhala abeed wasta bahalada weeye